federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo xalay ku hoydii magaalada Gaalkacyo ayaa maanta kulan u kala dabqaadida wuxuu la lahaa madaxda dawlad maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo hogaaminaya wafdi dawladda federaalka Soomaaliya u xil saartay damaynta xiisadda dagaal ee ka dhalatay magaalada Gaalkacyo ayna socdaalkiisa ku weheliyeen wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya xildhibaano iyo qaar kale oo ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa maanta waxa kulan la yeesheen madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guureed kulanka oo muddo saacadaha socday isla markaasna ka dhacay xarunta madaxtooyada dawlad goboleedka Galmudug ee magaalada Gaalkacyo ayaa markuu soo idlaaday waxa saxaafadda si wadajir ah ula hadlay madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guureed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyagoo ugu horeyn saxaafadda u sharaxay qodobadii ay isla meel dhigeen waxay noo soo jeediyeen afar qodob oo kala ah in xabadda iyo dhammaan qaalada colaadda oo la joojiyo in ciidamada la kala qaado in maaragtay dadkii barakacay soo celiyo dib loo soo celiyo iyo guddi wada hadal oo waxa la isku hayo iyo dhibka jiraahay ka wada hadlaa in dhinacyada kala duwan ee dowladda federaalka ah ay dhisaan annaga haddaan nahay reer Galmudug afartaas qodob waa aqbalnay waxaan ku aqbalnay shuruud la'aan ayaan ku aqbalnay qaabka loo fulinayana waxaan ka sugaynaa mufti sharafta leh oo dowladda federaalka ay hogaaminayso ayaa ka sugaynaa oo mahadcelinaynaa sharafta noo ay in xaqna marno waxaan u faraxsanahay runtii qodobadii aan soo jeedinay hay'ad afarta qodob hadda la sheegay in la qaateen anuu waxaan ku adkeynaya qodobka ka sii raacsanaya colaadaha in la joojiyo iyo waxaa la dhahaa isku waqti in labada dhinac ay nabad ku baaqaan haddii la yidhaahdo lana dhaqo maanta waxay ka dhamaysa inta harsan waxaa lagu dhamaynaya wadaxaajo حفظه وجده أنت نقدر الله نحرسه قلت يعني سأيا تراه أيا خلعان لكن واحد جينا قبل بينه وبينه علمت كأساس نشاط ذي هل مدخل على الأخير واحد جينا إن شاء الله أنا سير الحجود مصاف لنا جتاس سير شيء مربوطة خلت أنت وحقل الدولة حدينا إلى ديتيلز كده يصير له كلها مرخي على الوضع اللي نحوه كان مسبوقة الوقت وحضر واحد عندنا يرجو عنا سير شرط العلم واحترامي إلى سيد عبستي سمار خيحت اللي هو أشغال هذا الأمر تخل عادي كنت تلاوين وحوي رنتي جلسة إن على الفيوري مالتي ولاد لون الباهين أي سبعة صفحة إن شاء الله كينان أيوم تلاوة قادان dhanka kale madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guureed ayaa ballan qaaday inay wareejin doonaan maamulkiisu tiro maxaabiis oo ay sheegeen inay ku soo qabteen dagaalkii dhawaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo jinayna waxaan ra'iisul wasaaraha aqbalnay ama ku sharafnay inaan ku wareejino maxaabiis runtii dagaalkii ugu qabtay oo dad walaalaheen oo ehelkeena intaan haynin runtii aan aad iyo aad u sharafnay maxaanaynay waxaan u arkaynay inay walaalahay yihiin ehelkeena yihiin wiilashana yihiin u arkaynay goobta lagu wareejinayay maxaabiistan ayaa waxa sidoo kale ka hadlay taliyaha qaybta biliiska gobolka Mudug ee dawlad goboleedka Galmudug gaashaanle sare Maxamed Nuur Cali Gadaar ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxay ku hawlan yihiin soo afjaridda xiisadda ka taagan magaalada Gaalkacyo